السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada channelka Isbar Academy sidaan hore idinku sheegay waxaan baran doonaa koorsigaas oo ah Adobe Photoshop maanta waxaan qaadanaa casharkeennii ugu horeeyay wuxuu noqon doonaa sidee loo isticmaalaa Photoshop marka awalan waxaan soo kicinaynaa Photoshop haddii uusan computerkaaga ku jirin fadlan computerkaaga ku shubo si aad u isticmaasho أنا دوّي كعسين ياهي إذا كان سياسة سكرتها تبادلنيسان وأنا سو كعسينيسان markii uu soo kaco sidaan ay shaashadu soo muuqanaysaa marka qaybtan menu barka waa qaybtan sare oo qaraarka saaran tahay qaybtan waa option bar oo qaybihi hoos imaanaysa qaybkan waa tools kii aad isticmaali lahayd afartan hab uu qorayso waxaa la selection tool qaybahan kaleetana waa kuwan marka sidee rabnaa inaan wax usoo gelino haddii aan rabno inaan wax soo gelino sawir ama wax kaleeto waxaan leenahay file open ama shortcut ahaan control plus o marka waxaan soo gelinaynaa sawir tusaalahaan sawirka markaa ku dhufato kadib open ayaa leenahay sawirkii waa uu soo galayaa waa kana waa uu soo galay marka haddii aan rabno inaan sawirkan aan dib iskaga delete gareyno calaamadan oo external ku dhufanaysaa waa iska xiraysaa marka haddii aad rabto inaad page cusub oo wax ku naqshadeynayso ama qoraal aad ku qoraysid ama background kaleeto u baahan tahay kaleeto waxaa leedahay file new ama control n kadib cabirka ayaa siinaysaa meeshaas kor waxaa ku qoranaysaa nameka tusaale ahaan logo oo tusaale ahaan intan waxaa ku jiro document type waa biradii marka haddii aad rabto custom mid adig ku gaara haddii aad rabto artboard art illustration iconography film and video mobile app design haddii aad rabto warqadaha kaleeto international paper ku dhufanaysaa kor markaad international paper ku dhufato qaybtan size ka imaanaysaa ayu size oo A4 waa ku jira A4 A6 A5 A3 B5 B4 B3 waxaa dhan waa cabiro marka qaybtan waa widthkii qaybtan waa heightkii marka hadda waxaan u dooran A4 A4 waxaa lagu cabiraa waxay tahay millimeter ishaan haddii aad furto waxaa pixels inches centimeter millimeter points waxaa dhan waa cabir wax lagu cabiro waa marka badanaa borarka markii la naqshadaynayo kuleeto waxaa lagu sameeyaa centimeter intee mitir ayaa tabta halkii mitir wuxuu la mid yahay 90 centimeter markii aad rabto inaad sameyso kuleeto testero degdeg ah testero kuleeto waxaa isticmaalaysaa inches cabir gaar oo leeyahay siinaa qaybtana waa pixels haddii aad rabto wax HD inaad sameyso cabir qaar leeyahay haddii HD ku leento waa sidaan marka isticmaalkiisu waa sidaan haddii aad rabto inaad qoraal ku qortid waxaad taabanaysaa T ee keyboardka ama meeshan ayaad imaanaysaa flag dul saaran tahay T ayaad dhufanaysaa kabacdi meeshan ayaad imaanaysaa waad ku dhufanaysaa click ayaad ku siinaysaa kadib waxaa qoraalka rabtid ayaad ku qoranaysaa halkaas qoraalkii waan ku qoranay farta haddii aad rabto inaad wax ka bedeshid qaybtan koro option barka ku dhufanaysaa ishaasaa furaysaa waa kana ayu far nooca aragtid far walba waa ku dhigtaa marka nin walba dooqiisa la yaqaano haddii aad rabto wax ka bedeshid farta u weynaysid meesha ayaad ka weynaysaa meesha ayaad ka heli kartaa hadba sidaa rabta u isticmaali kartaa marka cashirkeena maanta uu wareeyay waa sidaas cashirkeena xigta wuxuu noqon doonaa sideen sawir ugu jarjari karnaa
background dambe aan u bedeli karnaa iyo cashar kale aad u xiiso badan. waadna ku mahadsan tahay waqtiga yar aad na daabatay. haddii aad ilowday inaad subscribe saarto haddaba ha iloobin oo subscribe ku dhufo. casharada xigo waxay noqon doonaan mid aad u xiiso badan. aad mahadsan tahay.